tani waa magaalada Burco kaliya ma ahayn taageero hase yeeshee reer Togdheer waxay dirayeen fariimo u muuqday inaanay diyaar u ahayn durbaanada jabaqada qalafsan ee mucaaradka bulsho dhagaha ka furaystay kuwa raba inay kalsoonidooda ku kasbadaan rajo ku sidkan dhalanteed iyo ballamo noqonaya hadiiba ayaa saaka isugu soo baxay fagaarayaasha dalka hogaamintii la jirabay ee 12 sano kuwii la aaminay ka kufriyay kii igmaday kaadrintii ku fashilmay inqilaabkii xukuumadda madaxweyne Silaayo ma dhici doonto inay soo haabtaan markale salaanka siyaasadda qaranka u baahan ku yar socodkuna marti gelin maayo kooxaha macangagtiisa mudnaanta siiya u badan erayadaasi waa luuqay ku ladnayd jiib iyo jaan wada socota oo saaka Burco ku dhawaaqaysay isku duubni iyo cudud bari iyo galbeed saaka meel bay wada martay Burco waxaanay u qoosgooyeen ku weysitay siidhiga qabyaalada iyagoo mabda'ooda ku dabray inay ka abaal celiyaan tacabka kulmiye gashaday iyo waliba ku qanacsanaanta siyaasadda uu soo bandhigay hogaaminta 5 sano ee soo socota Togdheer waa gobol miisaan waa murashaxiinta mid kastaana cabirka uu ka helo xilligan kaga saadaal qaadanayo guushiisa maanta si halbeega lagu eego guulaha reer Togdheer waxay 90% kor u dhaafayeen xariijinta ay ku xardhan tahay saadaasha oranaysa horaa loo soconaya madaxweyne Silaayo hogaamiyaha barnaamijkii kulmiye ee guuleystay ahna daadihiyaha murashaxa taabagelinta Muuse Biixi Cabdi ayaa reer Burco kala qayb galay maanta banaanbaxyadooda إنه قابله يبصر دونا شو مقدر مرشح مدحوني حزب الكلية وصبر عبدي وقولوا علي وصاحة ياسوا يارغا ويكون رفعي كارتي وفنان إلى خوفة فوالله حكومة طالع هذا الشيء ملبسه شرط ملبسه شديد ملبسه وطلع حيانا مصر ريال هي عاطفة ابن قمتنا يقول دار الرؤيا كل يسبب كسر نقول المعيشة وسط شيء مثل قبلها لكن جرس في المشاكل هيها وذكرنا نكترسن golaha wasiirada oo ka mid yahay jookarka kulmiye dheer yahay asxaabta kale waa Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa fagaarayaasha ka baariyay saako Burco waa burcadii la yaqaanay hadii dadka qaar moodaya in dadkeedu gamaaray waxaan leenahay Burco waa kulmiye Soomaha Burco waa kulmiye 13 Noofambar ayaa cid waliba wixii ay heshay soo bixi doontaa kulmiye waa xisbi weyn oo waay araga wuxuu dheer yahay xisbiyada la tartamaya 5 hal ayuu dheer yahay 5 hal baynu dheerahay xisbiyada kale 5 waana leena wadaagin koow waxaynu nahay xisbigii 7 sano dalka maamulaya wax qabtay wax qabad baynu haynaa inagu hadal tira ma hayno Soomaha waxaynu nahay xisbi waay araga oo shalay dhacay oo yaqaan guul darrada oo yaqaan guusha waxaynu leenahay qolooyinka layliga ninkii dhici jiray dib kuma aha dhawaan baradka waxa dheeliman wadani waxaynu leenahay ninkii dhici jiray dib kuma aha ee dhawaan baradka waxa dheeliman hogaamiyaha aynu dhisayno murashaxa ee kala Silaayo gashan doona waa hogaamiyaha ugu wanaagsan waa Muuse Biixi Cabdi waa nin la yaqaano waa la yaqaanaa wuxuu soo maamulina waa la yaqaanaa waxaynu leenahay kulmiye muxuu kala dheer yahay waa xisbi qaran maaha xisbi laba beelood maaha xisbi jeegaan quri leedahay maaha xisbi gobol kaliya 4 gobol buu ahaan jiray ayuu xoog ku ahaan jiray oo waligii ku adkaan jiray Togdheer waa kow waynu leenahay Sanaag waa 2 Sool waa 3 Maroodi Jeex 4 kulmiye waligii lagama qaadin maanta miyaa laynaga qaadayaa 13 Noofambar baynu ogaan doonaa 2 gobol maanta intuu dawladda ahaa kulmiye kasbaday waa saaxil iyo muawal 6 gobol buu ku adkaan doonaa
berrita ayaynu kala bixi doonnaa. cali mareexaan wasiirka howlaha guud cismaan saxardiid cadaani xagla toosiyey ambaasador baasha cawil iyo mas-uuliyiin kale ayaa iyaguna masraxa tartanka ka jeediyey khudbado ruxay quluubta banaanbaxayaasha. waxay dhahay isbeddel baanu doonaynaa. isbeddel yaa keena soo wax cusub maaha. isbeddel waxaa keenay xisbiga kulmiye, waxaa keenay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isagoo teeramkiisii labaad aanu dhammaanin ayuu doorashadii ka baxay oo ka tanaasulay. dabeedna xisbiga kulmiye wuxuu keenay musharax cusub oo dardartiisa qaba oo cusub oo dhiig cusub ah oo weliba 7 sannadood aan dowladda ka soo qayb qaadan oo aan xubin ka noqonin. allahu akbar kulmiye guul waxaa inoo ballanaa codkeenna inaynu kulmiye siino soo maaha soo inaan muuse siino maaha soo inaan mujaahidka siino soo maaha. waxaan leeyahay reer togdheerow rag badan oo halka aanu fadhino waannu soo noqonaynaa. tuulooyin badan iyo magaalooyin badan iyo xaafado badan oo burcaa waannu maraynaa si aynu taariikhda axmed maxamuud siilaaya aynu u sugno, siduu waxqabadkii uu ka tegay u sii socdo, siduu qarankan u ahaado mid jira. waa inaynu ku hubsannaa kursiga musabixe cabdi. 7 sano kadib kulmiye wuxuu Britain-ka ku gelayaa hogaaminay saldhig u tahay in laga tusaale qaato tallaabooyinka dhanka horumarka loo qaaday kaasoo aanay marnaba ugu babac dhigi karin asxaabta mucaaradka ee gawaanka ka taagan hanashada bulshadu. waxay ahayd maalintii koobaad, mabdaa'yada ka garaabaya guuluhuna waa kuwo iska soo daba dhici doona. taasi beddelkeeda mucaaradada ku isiran ku jiqsi cadho iyo iskooxaysi qawaday suuragal la'aanta dantoodii shakhsiyadeed oo hirgelintooda looga horjoogsaday danta dalku iyadu way sii shiiqi doontaa. maxamed yuusuf bakayle, magaalada Burco.